السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Soomaali وين maxamed waana وين salaamay meel سلامي kasta aad joogtaan أجوكتين أدي أدبان habeen كوح wanaagsan انت هبان قلتهاي انت معلوم تهي maalintayna معلوم maalin وناكسن wanaagsan ما شاء waa الله وأنا nabad يودي بسكوكو صلاة وانا وحرجيني إنا عافمال قبتيس أنا وعافمال قمنا أصحابتي نقالية ما شاء الله waxaynay wadnaa caawiya muuqaal cusub maasha allah asxaabteena qaaliga aad iyo aad baan kugu xiisana asxaabteena qaaliga wallaahi ru'aanta ay miisyo aynu leenahay maasha allah intaad nala soo dadaasheen aan maaragtay maasha allah aad hadda iyo aad kuki subscribe la-aantiin waa waxaaba abaar ma ahan kuki subscribe hadda waxyara Soomaali nooga dhiman la-aanteeda waa abaar na gaarsiiya asxaabteena qaaliga insha allah waxaan rajaynaya ka badan inaa na gaarsiin doontaan hadduu alla idmo walaalaheena qaaliga ah waa anigoo nasraa iyo walaashii shukri ibraahim maasha allah caawa waxaynu leenahay gacmo furan kusoo dhawaada weji furan kusoo dhawaada intii hore noola joogteen waxaan leenahay aad iyo aad baa umahadsantihiin inta nagu soo birtayna waxaan leenahay soo dhawaada walaalaheena qaaliga aad iyo maasha aad allah umahadsantiin inkoo dhan walaalada qaaliya aad iyo aad baad umahadsantiin caawa oo qiso xanuun badan aa wadno anagoo ka hadleyna walaasheen amiira sax amiira walaashee macaan waxaan leeyahay hore u soco adigu maa horen umaana dambeenin sax gabdho walaaladaaya oo badanna way ku dhacday qisada aad ba waxnuu kulushahay aad bay ii taabatay aniga walaashii nasra aad bay noo taabatay sax wallaahi aad iyo aad runaantii baan uga xumaanay anagoo walaashaaya walaalad isla wada nahay dumara marka walaale macaanta keligaa matiid ها hore u adigo soco ha u ها bixin umaada horeynin Ha. gabar xumeeyo umana laakiin dambaysa qofka bini'aadanka si gaar ay u taabataa marka Ha. maaragtay maaragtay maasha allah nolol fiican ku jirtid oo maaragtay dee waxaa waaye qofkii maaragtay nolosha kalsooni isugu aad haa siisay kalsooni kalsooni aad aad siisay siisid haa kalsooni aad siisay oo dee qofkii nolosha aad isla wadaagayseen dee waxa marna aadan isdhahayn waxaadan aadan ka filin kugu sameeyey marna aadan isdhahayn waxaana kaaga imaanaya waa waxaa waaye qadar rabiyo waxaa la yidhi qadar alla waa la qaataa marka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin walaashay macaan wallaahi runtii aad iyo aad ba aniga walaashay shukriba waxaa waaye uga xumaanay aad bay noo aad taabatay bay noo taabatay wallaahi run ahaantii I'm sorry walaashay macaan waxaa waaye maxay ahayd wax walba horta habeenka xabiibiya ahaydaa lagu qoray qof walba uurka hooyis markuu ugu jiraa wax kasta loo qoray adduunka wixii ku hadduu dhiman lahaa dee dhimashada waa la dhimanaya laakiin maaragtay intuu noolaya wixii ku dhici lahaa markaas isagoo dhashay dhiman lahaaya markaas isagoo weynaaday dhiman lahaaya marka alxamdulillahi rabbil caalamiin walaasha waxaan ku leenahay sidii aan macnaha hadda tiri gadaal aniga inaan soo fiiriyo yacni hadalladii wax ka qaadi karti maasha allah walaashay macaan waa ku maaragtay waxaan ku leenahay keep going horey u soco walaashay macaan marka run ahaantii wallaahi maaragtay dee weligaa maadaama hadduu qofku xumeeyo haa waa xumaanta horumaree horta kuu wallaahi abaayo way kala haa tahay shukriyey horumaree kuu sababtoo ah adigoo maanta qalan qofka markuu dhalo iyo markii uu maaragtay caadi u dhalo iyo markii la qalo waa kala mid laakiin waa dhaawac haddana ayada waxay islahayd dee waxaas ma isa filin waxay isdhahaysay qofku waa in maaragtay garbu ku siin doonaa niyadu kuu dhisi doonaa waxyaalo kala meeshiga haa qaliinkana haa walaahi waa qof dhaawac ah aad tahay oo haddana dhibaato kale lagula sii haddana maaragtay adigoo taadii u yaaban haddana mid kale lagula imaaday walaahi waa xanuun qof aadan ka filanaynad hadalkaas uu kaaga imaaday ama dhibaatadaas maaragtay waxay dhahaysay ma aan seexan jirin habeen iyo maalinba gabadhaas Keligeed. walaahi haa waxay tiri wiilkayga garka intaa waxaan gaaray tiri intaa xambaarsan inaan meelaha si ugu soo nifsi aan u aado anigoo qalanoo dhaawac ah marka walaahi run ahaantii aad iyo aad baa Inoo taabatay. aad baa walaahi baa macanta amiiraay walaale macaanta sorry saad hore u sheegtayba dib Haa. waa usoo eegin horey u socon ku leenahay Haa, haa aad iska iyo aad. ilow marka Anaga- abaay macanta Anaga walaahi dumaraan haa. kula nahay waa kula dareemeynaa kula dareemeynaa aad bay run xanuun ahaantii. noo taabatay qisadaas sheekadaas walaahi haa aad iyo aad abaayo waxaa annagu waaye waxaan la yaabanahay aniga nasooy nimanka soomaaliyeed majority u badan yihiin dhibaatadaasna gabdhaha ay geystaan Mhm. wallaahi been makuu sheegayey in badanna waan arkay aad bay ugu badan yihiin inay dhibaatooyinkaasoo kale gabdhaha u geystaan Mhm. ilaa mid baan horta la ilaahay u yaabanahay. naxariistay maahane Haa. ilaa man raxima rabbe mid ilaahay u naxariistay maahane mid boqolkiiba kale haa 95 ama 99 Mhm. way u badan yihiin hal ma ogiyo haa wallaahi ilaa mid u naxariistay maahane aad bay u walaahi qiyaamo haa badan yihiin aad bay u xun aad yihiin iyo aad raggeena walaahi run soomaaliyeed ahaantii midda hadda gabar qalbiga aad u taabatay. kalsooni ku siisay Mm. ku jecel
ba waxa weeye waxay ku sameynayaan waxaysan ka filanaynin ka filanaynin qofkan waa dhaawac waa umul waa maxaa la dhahayay isha hadalkan hadda ha u sheegin xitaa munaasab ma ahan inaa u sheegto ana midda ila yaabka badan bu waxay tahay gabadha ku raaceysa ninka inuu qaldan yahay nin naaqaba waa la isguursadaa waa la laweeya diintaa noo baneysay in afar la guursado afarta xitaa dee horta diinta way banaysay laakiin ilaahi subxaana watacaala ha wuxuu yidhaahday haddii aad awoodid inaad afartaba aad maaragtay xaqooda aad simaysid xitaa hal baa lagu markaa talabaad waxaa la yidhi wathalaatha wa rubaac talabaad markaa guursanaysa alyacni waa inaad tii qabtay iyo midaan baa isku mid xaqooda u siin kartay haddii aadan awoodin ilaahay wuxuu ku yidhaha iskugu dhawaanin haba guursan halkaaga ku ekow laakiin aniga midda aada iga yaabisa waxay tahay gabar soomaaliyeed baa gabar kale dhaawaceysa niyadeeda iyo maskaxdeeda iyo dhaawac weyn u gaarsiinaysa iyadoo ma jeclayn waxaas lagu sameeyo marka aniga taas aad baan uga la yaabaa walaahi in badan way jirtaa abaayo horta taasayto marka waxaa leenahay horta qofka walba oo maaragtay dhibaato soo mara ama qof walba oo wax ku soo dhacaan waxaa waaye isheeg horta inuu dib u sii fiiriyo ma ahan waa inuu horey uga sii socdaa sida hadda walaashin amiir oo kale maasha allah waxay tii guriga noloshaydii sida haddaan ahay yacni isma dhahin inay tiraahday noloshaana macnaha samaysanaysaa marka soomaali la-aanteedna meel lama gaarayo walaalaanahay ninkaa heerkaas gaarsiiye dabcan annagana saasoo kale kala sugeyna inaad heerkaas annagana na gaarsiisaan subscribe-ta like-ta sheerta naga iloobinina walaasha amiirna waxaa leenahay ilaahay ha ku xifdiyo wiilkaaga ilaahay ha kula koriyo maasha allah ilaahay waa ubad kaa siiyey abaay macanta alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waa ubad alxamdulilahi rab wiilkaagana insha allah ilaahay ha kaaga dhigo kii dalkiisa iyo diintiisa dadkiisa anfaca habbaartaytiyo macaane hore u soco insha allah soo barbaar allah ku koriyo insha allah hooyo macaane fiican baad haysataa maasha allah walaahi aad iyo aad cunugeeda beelo ku nufiso meel ugu ciyaaro maasha allah ka fikiraysa maasha allah iyo horumarkiisa maasha allah aad iyo aad bay amiiroy waa ilaahan ku baryeena maasha allah tahay oo adag arrintaas hadaad ka bogsatay oo ka kacday wallaahi waxa waa gacana ku taagay maasha allah saasaa la rabaa wallaahi saasaa la rabaa qofku waxaa fiican inuu karti u leeyahay maasha allah oo maaragtay wixii kasoo gudbay inuusan gadaal u eegin marka abaay macaanto waxaa waaye qof walba fikradiisu ku hadlaa qof walba waxaa waaye annaga walaalaha baa nahay maasha allah waxaa nidhi maadaama gabadhaas walaasheen arrintaas ku dhacday dee wax laga aamusi kara ma ahan wallaahi run ahaantii marka abaay macaanto waxaa ku leenahay kiib gobolka hore u soco run ahaantii qof walaalkaay haddii maanta dhibaato ku dhacdo adigana waa dhibaato kugu dhacday oo kale marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin hadduu nin uu gabar xumeeyo guursanayana lagama yaabo inuu xafido uu wanaajiyo maalinti tiila meeshii bay maraysaa marka ta u seexata oo dhahdo ninkan waa nin fiican uu ku xifdinayaa ma jirto backgroundka la eegaa tii hore wuxuu ku sameeyaa la eegaa isku mid baa tihiin amiira maasha allah aad bay u qurux badan tahay gabar yar waaye oo dhalinyaro ah oo aada u qurux badan ilaahay waxaan uga baryeynaa inuu nin kaleeto mid khayr badan siiyo oo jecel oo walaalkeeda oo garabkeeda saaxiibkeeda maasha allah garabkeeda alla inuu siiyo baa allahna uga baryeeyaa ka walaalayaalo marka asxaabi video macaawa arrintaasaan ka hadlaynay insha allah marka asxaabi waa inii xiisnay aad iyo aad baa umahadsantihiin share iyo like iyo comment inta baa naga ilaaway subscribe insha allah asxaabta qaaliga la-aantiin abaar maaha la-aantiin abaar waaye la-aanteed walahi soomaali waa abaar aad iyo aad baa inii jecelnahay walaaladeed baa tihiin marka walaalayaalow habeen wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu